gabadha aan dhalay anigu aabahood wuu imaanayay lacagtu siiya waa ku daldalaa wax kasta geed dheer iyo geed gaaban waxay u kortay inuu iskuulka hameenka maaragtay waalidiinta yimaado iskuulka ay ku aragto marka wax kasta markay samaysay ay ka kari weyday hadda asagoo wax kasta siinaya bay wax u bixisay money bank waa ninkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو صلاة وناكسن وبرنامج كلا أو حيسة له إن هالك عادي قد دعونا إنسان وكاها نلشة إن أنا بنو فردوس محمد عبد الله برنامج كعاو عندوني إن أنك هاللوحة وكساب سي هاي وينك هيستعرورته إسلام كان أيه وكل جود مرة والبا نلشة عرورته ده مسؤولية دي يهوله كلا نلشة جورجا أيه حنبار صدي iyadoo laga yaabo in aabayaalkii caruurtaasi ka dhalay ay la nool yihiin amaba ay kala tageen maxaa diiday caruurta in la isla korsado haddii la kala tagayna aabuhu uu ku lug lahaado nolosha caruurtiisa ka qayb qaata barbaarinta caruurtiisa isla markaana uu yimaado tusaale ahaan balamaha iskuulka barnaamijku waxaa igala qayb galaysa Zahra Diiriyo oo ah maskax kobciso Shukri Sharaf Janal oo Shukri Siido oo Xasan ah Jamiila Guruun oo Jamiila official ah marka hore waxaan rabaa martida inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka aan ku bilaabo Zahra wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh shukri wa sorry Firdawsa waa mahadsantahay waa dhawahay sidoo kale Jamiila soo dhawow waa mahadsantahay Firdawsa waa dhawnahay waana ku faraxsanahay inaan maaragtay aan caawa ka nolosha ka soo muuqan shukri sidoo kale Firdawsa aad ugu mahadsantahay iyo asxaabtayga la qayb galayso waan salaamaya Zahra Diiriye iyo Jamiila teamka ka noloshana waa salaamaya waa tahay dhamaantiin waxaa idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada aan bilaawno barnaamijkeena ee ku saabsan mawduuca caruurta Soomaalida qurbaha ku nool inta badan waxaa mas'uuliyadda tii caruurta gacanta ku haya oo hormuudka ah hooyada iyada ayaa mar walba la arkaa iyada ayaa u muuqato inay tahay tan kaliya go'aamada ka gaarto haddii ilmihii dhibaato soo foor saartay iyo reerka iyada kaliya un xal u raadisa iyadoo la og yahay in caruurtaas qaarkood amaba badankood aabayaashii dhalay ay nool yihiin laga yaabo wadanka ay isku wadan ay ku nool yihiin gaar ahaan inay isku xaafad aan aad u kala fogeyn ay ku nool yihiin maxaa ugu wacan arrintaasi ma cilad dhinaca dumarka ka imaada hooyooyin ka imaada mise aabooyinka ayaan mas'uuliyadda ogoleyn inay qaadaan Zahra ayaan jeclaan lahaa marka hore inaan su'aashaas hordhigo aad iyo aad baa u mahadsantahay Firdawsa rinkan maasha Allah waxaa la dhahaa waa topic hot topic waaye runtii waxyaalo badan baa quseeya arrintaas Soomaalida markii laga hadlaayo waxaasna waxa weeyaan waxyaalaha keena dadka horta Ilaahay abuuray rag iyo dumarba isku mid maaha laakiin dhibaatada Soomaalida haysataa waxa weeyaan dhowr nooc baa Soomaalida haysta mid horta waxa jira dib ka imaanaya maaragta burburka wadankii ka dhacay horta qayb uu ka yahay waxa waaye markii bulshadii burburtay oo noloshii familigu ku soo noolaan jireen iyo wixii awoowayaal laga dhaxlay iyo xoolihii lagu noolaa iyo guryihii la lahaa iyo wixii la soo waayay qurbaa la yimid qof walba wuxuu ka fikirayaa inuu familigii gadaal ku haray ama reerkii gadaal ku haray uu biilo marka aad ayay arrimahaas runtii qayb uga yihiin maaragtay isku dhaca waaridka labadii qof markay isku dhacaan ma ka fakaraan ama ma dhahaan maartaqaanaa yani ama hadday wada joogaanba runtii waxaa imaada dhibaato xagga dhaqaalaha imaanaysa oo in la isku haysta dhaqaalihii waxaa imaanaysa mataqaanaa dee sadbursi baa imaanaya kala qornaanshahan iyo mataqaanaa guriga aan la wada joogo waayo qofka moor aa wada degantiin aa guriga wada joogtaan noloshii baad ku yacnihii waad wada qaybsanaysaan waxa kaloo imaanaya oo kaloo jirta in mararka qaarkood dumarku ay yihiin yacnihii dumar badanoo waxaa jira runtii ragga aanu ogolaynba xataa inay ilmahooda yacnihii ay qayb ka noqdaan noloshooda
oo amaanada ilmahaygi weeye ha taabani waa dilaysaa mataqaana sida loo kariyo waxyaalo badan oo hadda mataqaana aan sii faahfaahin doono anigu waxa aan badan oo aan ogahay baa jirta anigan kula hadlayaba xataa mararka qaarkood ba aan qayb xataa qaar aan ka ahaa baa jirta oo ma fahamtaa marka yacnihii waxyaalo badan baa keenaya oo runtii u baahan in si fiican loo faahfaahiyo laakiin waa ku soo noqonaynaa intaas hortaan waa tahay bal aan siiyo shukri hooyadii iyo aabihii oo isqaba ayaa la arkaa in qoyska dhibaatada haysata ay hooyada keliya orodo haddii xal dhibaatadaas loo raadinayo hooyada keliya la arka tusaale ahaan waxaa la arka qoysas Soomaali ah oo caruur laga qaatay hooyadii iyo aabihiina ay isqabaan oo dad isqabo oo isla nool ay yihiin hase yeeshee la arka keliya hooyadii oo barooranaysa hooyadii oo xal raadinaysa hooyadii oo albaab walba garaacayso si ay mushkilada familka ay lugaha la galeen ay uga bixi lahaayeen maxaa ugu wacan maxaa u diida aabaha inuu kaalintiisa qaato uu mas'uuliyadiisa uu qabsado waa tahay Firdawsa adigoo aad u mahadsan horta arrinta ay Sahra ka dhawaajisay waa udub dhaxaadka dhibaatada ugu weyn haysata in hooyada kaliya ay ka soo muuqato goobo walba tusaale ahaan haddii aad aragtid waxaa laga yaabaa aabayaasha badan in lagu arko ballan yar oo caafimaad oo ilmuhu uu geynayo laakiin dhibaatada asaasiga ah oo kale ilaahay laguma keeno markay dhacdo sida hooyooyinka Soomaaliyeed qaar qabsata meel kasta waxaa taagan hooyo meel kasta waxaa ku oynayso hooyo xataa markii la geynayo caruuraha xanaanooyinka iskuuladoo kale inta ugu badan dadka socda haddaad fiirisid ama il gaara ku eegtid waxaa u badan hooyooyinka isbarbardhig markaad samaysid waxaa laga yaabaa 100% oo kale inuu raggu goobaha ku aragtid caruurta soo qaadidooda halkaasna aan ka dheehan karno tirada inay ugu badan yihiin hooyooyinka dhibaatadu markay dhacdo haddaan ku xijiyo waxay tahay hooyadu inay ka dareen badan tahay hooyadu inayna hurdin hooyadu inaynan harsanin hooyadu ilaa ay qancayso maxaa la yiraahdaa ilaa ay xeeradu salkeeda soo taabanayso taasi waxaan dhihi karnaa hooyadu inaynan ma aragtay mas'uuliyadda ilaahay saaray ay 3 jibaar iyada kaligeed is saartay taasi oo ugu caddahay oo meesha ugu muuqato in haddii xataa dhibkii dhacay oo xataa ilmihiiba tusaale ahaan sidaan aragno dowladda soo farageliso amaba la qaato in ay hooyadii albaab kasta inay u garaacdo ay diyaar u tahay halka aabuhuna uu ka gambanayo uu ka adag yahay oo sidaan dareemi karan hooyooyinkana xataa emotionalka marka ay tahayna ay meel walba ay ku ooyeyso hooyadii ay taagan tahay afka furanayso halka ninka ragga ah inuu ka adkaysi badan yahay shukri waa tahay inkastoo iyadoo marka dhinaca dareenka laga hadlayo ee hooyadii aabaha u wada siman yihiin ilaan cunugu waa cunugiisa xanuunka hooyada ay dareemayso in asaga ayuu dhinaciisa ayuu ka dareemaya balse haddana mushkiladu waa ay taagan tahay oo waxaa la arkaa ilmo aabahood nool oo hooyada kaliya ay iyada dhibaatoonayso Jamiila aan siiyo Jamiilo aabayaalka Soomaalida in yar oo fara ku tiris ma ahane badankood lama arka ayagoo tagaya balamaha iskuulaadka dhaqaatiirta waxaa laga yaabaa xataa goobaha dabaasha loo geeyo maxaa ka hortaagan aabayaasha Soomaalida haddii ay isqabaan hooyada ay isla degan yihiin haddii aysan isqabinse soo xiriir lama yeelan karo caruurtiisa maalmo cayiman Firdaws waa runta waa arrin muhiim ah oo meeshan ku jirta horta hooyooyinka waxaad moodaa inay weligoodba iyagu ay caruurta u dhabar adeegi jireen hadday dalkii tahay iyo hadday qurbo noqotaba dalkii waa tad ogeed oo hooyadu waatay u xamaalo jirtay ama jaad ha gado ama dhuxul ha gado ama wax kala soo xamaasho ama iskuul ha ka dhiibto ama dugsi ha geyso ama markas horta hooyadu waa waxay udubkay reerku ku tiirsan yahay qurba haddii la yimidna hooyinku sidii ayay iyaguna xilkii usii may dhigin ay usii labanlaabeen oo usii hayaan dhibaatooyinkaasna waxa ugu badan horta kala qornaashaha ana sidaan dhigi karo waayo ninku haddoonu guriga ku qorayn waxa uu ku qarinayaa kobihiisii wuxuu qarinayaa dharkiisii wuxuu ka baqayaa guriga maaragtay iskoolka iyo hadduu tago meelaha in la dhahayo war adigu xagee jirtay reerka maba ku qorridee naagtu waxay sheegtay inay kaligeed tahay
taasoo laga yaabo inaysan shaqaba isku lahayn iskoolka iyo caafimaadka iyo iskuulka iyo waxyaabaha shaqo iskuma lahan qolyaha maaragtay dhaqaalaha bixiya oo maaragtay ha noqdaan kuwii lacaga bixinayay ama guryo bixinayay laakiin waxaa laga yaabaa inuu ninku baanikba ka qabo sidiisaba wax yaroon macno lahayn amaba ay hooyadu ka qabto cabsi in ninkii lagu sawiro oo la yidhaahdo naa ninkan xageed ka keentay maba kugu qoreen marka horta qurbaha cabsidaas ayaa ugu badan qaarkoodna ragga ayagaaban rabin ba sida la sheegay inay tagaan oo ay maaragtay mas'uuliyaddaas qaataan markaan waxaan dhihi karaa hooyooyinkan xulkan awal bay hayeen xilkii ay hayeen ee dalkii ku hayeen bay intana ku hayaan tii ay sii labalaabeen oo keligood ku noqdeen oo xaggii famil iyo reer iyo qaraabay waxbaaba kula hayay inta waxay noqdeen keligood marka waxaan leeyahay waa xilay hore u hayeen kani maaha mid ku cusub aabooyinkana waxaan leeyahay qaarkoodna daruuf baa ku keentay sidaan aaminsanahay qaarkoodna ayagaa rabeen inay xilkaaseeto ay sii wadaan fardows waan gartay inkastoo qaar ka mid ra'yigaaga aan kugu raacsanahay hadda laakiin waxaa jirta bointiyo aanan laga yaabo inaan fikrad aanan ku qanacsanayn oo aan dhinacaas kaaga soo horjeedo sida in hooyadu iyada mar walba xilka dhabarka u dhigato ay wadanka markii la joogo ay u dhigan jirtay sababtoo waxaa la ogyahay wadankina dhaqan iyo maxay ahayd nolol ayaa ka jirta gaar ah intana nolol ka duwan ayaa ka jirta waayo nolol ka adag nolosha Soomaaliya ayaa halkan lagu arkay control ka adag control aan Soomaaliya hore loogu qabin ayaa inta lagu qabaa caruurta waxay ku jiraan hooyooyinka halgan culus oo dhinac walba leh marka saas darteed hooyo kaligeed ilmihii aad ayay u adag tahay inay korsato aan siiyo Zahra aan ku soo laabto waxaa la arkay hooyooyin ee aabayaal kala tagay haddii hooyada la furo caruurta ayagana ma la furaa Zahra okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in yar baan horta waxaan ku noqonayaa tanna waa kaaga jabayaa laba wax arrimood baan ku noqonayaa wadankii horta markii la joogay ma burburka waqtigu dhacay mise wixii ka horreeyay burburka hooyo reer may dhaqaalayn jirin iyadu bariisna ma keeni jirin mana soo shaqayn jirin aabaha bareed winner waxaa la dhahaa aabaha reer ka quudin jiray marka oo waxa waaye dhaqan ahaan ama tradition ahaan Soomaalida aabaha ayaa ahaa hormuudka reerka oo reerkiisa biilan jiray waa intii dagaalka ka horreysay waxaanu ma jirinin waxaan marka aad arkaysaan hooyooyinkan suuqa u soo baxayo idinku aad la korteen waa wixii dagaaladii iyo burburkii keeneen oo waa mirihii dagaalka ka yimid waaye faa'iidooyinkii dagaalka laga dhaxlay bay ka mid tahay halkan markii la yimid waxaa jirta sida ay Jamiila sheegtay in hooyooyinkii mataqaanaa iyo aabayaasha markii been la sheegayo ay baranooyadan way jirtaa horta la kala cararayo oo maaragtay inaan ninkii guriga lagu arag laakiin markaan hadda soo duuduuba waxaa jirta dumar badanna wayna la leeyihiin ninka hadduu xataa hooyada la joogo mas-uuliyaddii ninka inakaa u diidna inuu qabto dumarkaa u diida adakaa u diida dumarkaa u diida see ugu diidaa waxaan ugu diidnaa aniga dad badan aan ogahay oo aan saxaab la ahay oo isqabaa jira maaragtay see ugu diidnaa waxaan ugu diidnaa waxa waaye lacagihii haddii lacagtii waxaa la rabaa horta waxay ku bilaabanaysaa dhaqaalaha gabadhii dhaqaalihii inay gacanta ku dhigtay rabtaa ninkiina ma isu arkaayo in mas-uuliyaddii asaga la saaro ninki uu mas-uul reerki ka yahay waa sida reeruhu u badan yihiin ma sheegaya reer kasta inuu saas yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa markaan shakhsiyaad kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa dadka jamac ahaan Soomaalidaan ka hadlayna waxa waaye gabadhii dhaqaalihii bay reebtaa inay gacanta ku dhigto markay gacanta dhaqaalihii ku dhigto waxay rabtaa iyada reerkeedii inay wax kasta u dirto way yartahay mid dhifa waxay leedahay okay adna reerkaaga saas u diro marka waxa imaanaysa inuu asagii shaqaysto ama guri uu reerkiisa bareed ka noqdo ama wax ka noqdo wax la kala qorsheeyo mideeda kale waxa imaanaysa ilmihii mas'uuliyaddii waxa waaye wuxuu arkayaa cadow nimankii isagoo nolol wuxuu ku leeyahay biilkii baa soo dhacaya warqadihii buu keenayaa naa biilkaagii buu leeyahay naa caruurtaadii buu leeyahay naa biyahaagii waay uu leeyahay mataqaanaa waay u dhahaya biilkaagii waay u leeyahay korontadaadii waay u leeyahay biyahaagii waay u leeyahay waxaasa ku soo dhacay waayo wuxuu arkay ninka rabbi subxaanahu watacaala horta qaymuus iyo dignity waxaa la dhahaa ego marka ninkii haddii mas-uuliyaddii laga xayuubiyey
oo asagii iyagiina qaar badan oo iska soo farfariisteen oo markii horeba shaqo ma ay raadsan oo meelahay fadhi ku dirir galeen naagtii marka xayuubiskii markay ka qaadatay mas-uuliyaddii asagii marka wuxuu iska dhigay qof oo maaragtay dhinac kastaba disable buu ka noqday sidee looga xanyuubiyey zahro su-aal kalena way ii kaa kor taallay sidee looga xanyuubiyey haddii aabbaha uu yahay aabba shaqaysanayo oo aan u baahnayn in uu maxay ahayd caawimaad ka qaato dowladda sidee xilka mas-uuliyaddii oo lahaa looga xanyuubiyey ileen waaba nin shaqaysan karo oo shaqaysanayo oo isku kalsoona horta waxay ku xiran tahay meesha adduunka meelihii soomaalidu soo gashay meesha ay soo gashay bay qoladaas ku xiran tahay hadda ingiriiskoo kale haddaan kaaga sheego kulli inta badan waxa waaye cayr baa la qaadanaya maadaama cayr la qaadanayay oo ninkii uusan markii hore dadka shaqaysta aad bay u yaraayeen rag marka iyo dumarkaba runtii iyo qofka waxbartaba aad bay dadka ugu yaraayeen marka maadaama cayrtaa la qaadanaya cayrtii baa maaragtay dee la rabana inay dadkii maxaan ku dhahaa dowladdana lacag badan bay ku deldelayso carruur badan baa la dhalayaa carruurtaas la dhalaayo lacagtii la deldelayaa la isku haystaa marka yacnihii mas-uuliyad waxa looga xiyuubiyey wax waa isagii caqli ma samaynayo ma dhahayo naagtaan sasabo oo bal atleast carruurtii mataqaanaa la qabo waxaas cadaawad baa gelaysa ma fahamtaa ayadiina waxa waaye waxay rabtaa dee inay dhaqaalahan iyo waxaanayto ayadii ay ka noqoto meeshii mas-uul ka noqoto wixii gacanta ku hayso ninkiina ma rabo in gacanta wixii loogu qabto marka cadaawadda gelaysa waxaan arkaa kuwo badan oo dhahaya biilkaaga korontadaada biyahaaga carruurtaada wax kastaba asagu waxa waaye wuxuu isu gartay markaan qof mar imaanayo gurigii jas lugta kula jira laakiin wax mas-uuliyadoo asaga saaran aysan jirin ilmihii caddani ninkii waxa weeye gabadhii marka isnacaan ilmihiina wuu nacaya ilmihii yacni waxa weeyaan nin ama ayadiiba waxa waaye xanaaq bay waxay samaynaysaa xanaaqii ay ninka u qabtay bay waxay samaynaysaa waxay leedahay mee agtayda ma soo mari karo meeshaan taagnahay ma soo istaagi karo ilmihii marka ma ay isdhahayso xaggii ilmaha aabbahood inuu yahay oo dareenkii ilmahana xaqoodii ay lahaa baysan gabadhii dareensanayn inay ilmuhu xaq u leeyihiin inay aabbaha arkaan marka xanaaqeedii iyo caradii ay ninka u qabtay ayaa wuxuu keenayaa inay aabbihii mataqaanaa ilmaha xaqoodii ay duudsido asaguna waxa weeye xanaaqii uu gabadha u qabay buu wuxuu leeyahay mataqaanaa ayadaa dhashay naagtan iyo waxay dhashayba qori iyo qiiqiisa waa laysla tuuraa dariishada ha ka baxaan marka yacni waxa waaye ilmihii labadaas qof midna uma danaynayo dad yar ma ogiye dad yar way jiraan oo runtii inta dhaha waca ama ilmaha arkasay aabbihii u raaraadinayaan gabdha aniga waxaan ogahay markay ilmihii aabbihii raaraadiyaan dee ugu yeeraay qaar xataa waxay dhaheen intaan ugu yeernay ay ninkii diiday baa jiro oo weli uu caradii u qabo hooyadii ka dhex arkaba ilmihii marka mushkiladaas waa mushkilo oo baahna inaan xallino haddaan soomaalida nahay waa mahadsan tahay shukri sida hadda sahre ay ka dhawaajisay haddii hooyadii ay aabbihii ay rakaato ka saarto in ilmihiisi uu la kulmo soo iyada culays iyo dhibaato iskuma badinin maxaa u diidayay sida dadka kale ee ajnabiga ahba markii ay kala tagaan in aabbaha 2 maalmood ilmaha ama 4 maalmood la siiyo uu soo haysto asaga naftirkiisa si iyadana ay raaxo ugu noqoto 4 maalmood ee nolosheeda waxyaabo kale ku qabsato ilmihiina aabbahood intaas ay waqti la soo qaataan si xiriirkii aabbihii iyo ilmihii oon u dhimin runtii waa arrin mawduucan waa wax taagan qurbahan hooyooyin badan oo dhibaatadaas haystaa aabbayaal badan iyaga naftirkooda dhibaato gooniya haysato sida imaam zahra xustay ee ra'yigaas waan soo dhaweynayaa oo xuquuqdii aabbaha ilmihiina waxay noqdeen ilmo dulman oo dhexdoodii sidii kubaddii ay noqdeen ilmihii hooyadii baa dhinac kasoo laadaysa aabbihii dhinac buu ka laadaya ilmihii waa laysku hirtiyaa culeysyo badan dhibaatooyin badanaa jirto wadamadan qurbaha aan nimid waalidka khibrad uma laha badan qaarkood aan dhaho maxaa la in ilmihii iyadoo la kala tegay wanaag iyo cizi iyo sharaf lagu wada noolaado ilmahaasna la isku xurmeeyo balse interested iyagoo fiirsanaya ayaa ilmihii dhibaato loo geystaa waalidka qudhiisana dhibaato ayay isku geystaan aabbihii dhibaato u geystaa hooyaduna way geysataa xalna meesha mararka qaar waxaa dhacda in soo dhex galaan dadka soshaalka oo kale hay-adaha caruurta iyo ma aragta ay qusayso si markaasi caruurtii waxay ku qasbanaadaan hay-adaa u dhexeeyo oo caruurtii waxaa tusiya dadkaasi gacan saddexaad ayaa tusisa hooyadii waa la tusiya aabihiina waa la tusiya badanaa laakiin hooyooyinka ilmaha loo xukumaa
laakiin hooyadii awoodda isbidaysaa ilmihii waxay u diidaa aabayaashii ii sheeg xuquuqdii ay lahaayeen oo asaasiga ilaahay ma aragtay siiyey ama dowladuhu qaarna ay u ogolaadaan aabuhu hadduu si sharciyan ay caddayso inuu ilmaha dhalay hadday tahay DNA laga qaaday oo kale amaba inay isqabaan marriage-ku kale ay ku caddahay ilmihii xaq buu u leeyahay ilmihii aabihiisu u baahan yahay aabahay aawuu leeyahay ilmihii dhibaatooyin gaar ay qabaan ogow dhibaatooyin gaar ay qabaan kaalintii aabaha meesha way ka bannaan tahay waa in aabuhuna oo naftirkiisa waa inuu usoo diyaar garoobaa oo ubadkiisana waqti siiyaa qaarkood aabayaal ka fakanaya jirto mas-uuliyadda rabin iyagana sida shaatiga isaga siibay waa gartay sida hadalkaaga iyo Zahra meelo kamida aad isku raacdeen hooyooyinka qaarkood ayaga ayaan rabin in ilmihii iyo aabihii ay xiriir wada yeeshaan taasoo aan nasiib daro aad u weyn waayo xitaa maskixiin ahaan ilmaha koritaankooda ilmaha kaleetood ay la nool yihiin ay iskoolka la dhigtaan marka aabahood iskoolka uu keenayo ama ay sheekaysanayaan cunuga Soomaaliga aabihiis lama arki inta badan waxayna ku tahay waana war ilmaha way sheekaystaan ani aabahay waxaan ii soo gaday aabahay weekendiga meesha soo ii waday aabahay saan u yeelay cunuga cuqdad ayuu ku korayaa way fiicnaan lahayd in dad badan ay dhinacaas ka fiiriyaan waxaan rabaa su'aashan inaan weydiiyo Jamiila maskaxan ahaan ilmaha dhaawac heer intee la ayaa gaarayo marka uu ilmaha ficiisa uu la sheekaysanayo oo cunugi kale aabihiis u amaanayo u sheegayo waxa uu qabtay cunugeenana aanu haysan aaba wada aaba sportiska geeya ka soo wada aaba dabaasha ka keena aaba mar walba noloshiisa isla qaataan weekendiga maskaxiyan ahaan maxay arintaas u dhimi kartaa Jamiila maskaxiyan horta anu xanaameysanaa wax badan bay u dhibaysaa sababtoo ah ilmuhu marka ay casharada qaadanayaan oo galaaska fadhiyaan sidaad ogtihiinba waxaa la siiya buugaag iyo qalmaan mararka qaar waxbay sawiraan marka waxaa lagu yidhaha sawira xubnaha qoyskiina ka mida xubnaha qoyskooda marka waa inuu noqdaan caruurtii iyo hooyadii iyo aabihii nasiib daro ilmaha qaar ma haystaan aabba ay sawiraan waxaa leeyahay sawira inta guriga kugula nool marka aabihii guriga kuma noola marka in badan markay sawiraan aabihii iyo hooyadii iyo caruurtii waxaa niyo jab ku dhacaya kuwii kale oo hooyada iyo ilmaha uun sawiray marka qaar badan waa arkaysaa oo gabadhayda hadda gabar yar baa ii joogta maasha Allah la ii deysto gabadhu marka waxay iiga sheekaysaa waxay leedahay hooy markii aan sawiradaas samaynay gabar heblaayo ma haysan aabba ay sawirto ma haysan marka hooyadeed iyo walaalaheed lay sawirtay aabaheed waxaan ku hooy aabaheed waxaa laga yaabaa inuu ama shaqo jiro ama dee si kale u maqan uusan wadanka joogin marka ilmuhu dhexdooda ayaga isweydiinaya oo su'aal ahaan ama homoog ahaan u qaadanaya xaguu talow ka baxay hooyadii aabihii cunugan yare maaragtay adigu aad haysataa qofkana uusan haysan marka runtii way fiican tahay in caruurta naftirkooda loo niyada loo dhiso la yiraahdo aabuhu meesha kama dheera qoysku waa ka mid yahay maaragtay guriga waa ka tirsan yahay aabuhuna inuu ilmaha uu niyada u dhiso oo la dareemaynayo ilmahani aaba leeyihiin hooyo leeyihiin oo maalmaha maaragtay loo baahan yahay maalmaha iskuulada haddii iskuul after school noqotay haddii iskuul kasoo qaadis iyo geesnimo intaba ay noqoto inuu maaragtay uu gacan ka geysto aad bay muhiim tahay ilmaha korriimadooda iyo niyadoodana aad bay kor ugu qaadaysaa markii aabuhu uu gacan siinayo ama subaxii xaggii ama galabta soo qaaday marka aabaha kaliya ee caruurtiisa dayacay kaligiis ma lahan waxa hooyooyinka ayagana mas'uuliyadda dhinacooda ayay ka leeyihiin maadaama hooyooyinka qaarkood aanay ogoleen ilmihii aabahood inuu xiriir yeeshaan barnaamijku waa gabagabo maskax kobcisa Zahra ayaan waxaan siinayaa maskaxiin ahaan isla su'aasha Jamiila aan weydiiyey maxay caruurtaas u dhimi kartaa horta waxaa jirta Firdawsi aad baa u mahadsantay waxaa jirta baaris aan samaynay 2019 kaan samaynay waxaan ka samaynay dhalinyaro isugu jirta 15 ilaa 25 youthka oo discussion marka baaristaan samaynay su'aalaha waxaan weydiinay baa kamid ahayd yacnihii dhibaatada dhalinyarada soo saarta dhalinyaradaas waxay isugu jireen heer college iyo heer yacnihii jaamacadeed bay ahaayeen waxa waaye baaristii 4 qodob horta waxyaalaha aan maleynaynay runtii 4 qodob baa ugu sareeyay dhalinyarada ay maaragtay waa haddaan publish garaynaynaba
hadday soo dhammaatayba runtii baaristaas feasibility studygaas marka yacni dhalinyarada waxa ugu waaweyn oo ay meesha ka sheegeen waxay ahayd horta aabbaha maqnaanshaha aabbaha absent father wax waaye aabbaha maqan baa wuxuu ka ahaa nambarka koobaad kan labaadna waxay ahayd maxaan ku dhahaa cidda ay yihiin waxaa la dhahaa identity wax waaye midda ugu dambeysay afartaasa waxay ahayd dhaqaalo waxyaalaha waxay ku saabsanayd waxyaalaha karaamka dembiyada geliya dhalinyarada soomaalida dembiyada gelaya ha ogey marka muhiimadda waxaa la dhahaa ingiriisku wuxuu ku maahmaaha wuxuu dhahaa ilmaha oo aabbaha aan haysan waxaa la dhahaa waa half human being waa nus bini aadanka nuskiis waaye waxay kaloo dhahaan guriga wuxuu la mid yihiin guri ruufka ama saqafka laga qaaday the children without father they are look like a house without roof bay dhahaan ma aragtaa yacnihii marka darbigii ay dugaashan lahaayeen dhanaaba maqan exactly marka ilmihii wax waaye lacag kasta xataa wax kasta aabbaha wax kale hadduusan tarina iskuulka uu ka soo qaado sida hadda jamiila seyiga uu qaado waxaan kuu sheeko yar baa aniga oo personal iyo abaan idinkaga sheekaynaya gabadha aan dhalay aniga aabbahood guu imaanaya lacagtu siiya waa ku daldalaa wax kasta geed dheer iyo geed gaaban waxay u kortay inuu iskuulka hameenka maaragtay waalidiinta yimaado iskuulka ay ku aragto marka wax kasta markay samaysay ay ka kari weyday hadda asagoo wax kasta siinaya bay waxay u bixisay money bank waa ninkii money bank bay u bixisay yacni ilmaha marka qaymo uguma fadhiyo lacag la siiyo waxa ugu weyn oo ugu fadhiya qaymaha oo niyadooda dhisaya maskaxdooda dhisayo koritaankooda ka qayb ah waa jacaylka iyo jacaylka xataa banaanka uma muuqdo iskuulka saa u sheegayseen ciyaalka inay la sinmaan ciyaalka asaagooda inay tusaan inay aabbo leeyihiin inay tusaan inay mataqaanaa la qiimeeyo value loo sameeyey ma fahamtaa marka yacni taas aad bay waxa waaye dumarka waxaa la rabaa ninka wax kasta isku heesta waa inaa ilmahaaga horta kow qiimaynta koobaad siisaa naftaada ha eegin soo baxa uu noqdaa aabbe ilmihiisa oo xataa haddii la kala tago oo ilmihiisa ka qayb qaataa noloshooda oo aanu noqon nin aan ilmo shaqo ku lahayn oo aan ilmo dan ka lahayn oo waxa uu furo oo hooyada yahay uuna caruurta furin weliba mid yar baan kusii dhamaystiray waxa waaye shukriyey waxaa lagu leeyahay markii la baaray waxaa leeyahay shukriyey maaha firdowsa sorry firdowsa waxaa lagu leeyahay markii la baaray culummada sayniska baartay waxaa lagu leeyahay midka ugu liita ee alkolada iyo jaadka iyo qamriga cabaaya aragtidaas ay arkayaan ilmuhu indhaha saarayaan noloshooda wax weyn bay ka bedelaysa bal iska dhaaf wax kale waxaan rajaynayaa hooyooyin barnaamijka waa soo gabagabaynaynaa waqtigu aad noogu yar waxaan rajaynayaa in hooyooyin fara badan iyo aabbayaal haddii khilaaf uu soo kala dhex galo noloshooda ay maxay ahayd khilaafkooda ayagu keliya ay ku ekaadaan balse ay ka ilaaliyaan in caruurta ay saamayso khilaafkaas amaba la dareensiiyey ilmaha in ayaguna dhibaatada taagan ay qayb ka yihiin islamarkaana ilmaha iyo waalidka dhalay aabbaha ay xiriir yeelan karaan xitaa iyadoo la kala tegay aabbaha hooyooyinkana sidoo kale haddii 2 maalmood lagaa soo haya caruurtaada oo aabbahood ileen asagaba wuu dhalay adigaba waa daalaysaay fursadda si adigana maalmahaas intaa lugaha iskor saaratid waxaa rabti samayso shoppings aad banaanka aad hawo soo qaado xaflad aad quraan iska aqriso waxaa rabti samayso balse adigana naftaada u raaxay aabihina ku dhib ileen wax isdhal waa la isku dhibaahaa la dhahay in yar ku dir firdowsa ilmahaas waxay nacbaanayaan ifka ugu nabcaanayaan waalidka kale wax uga sheegay ama u diiday xaqiiqi shukri iyo jamiil barnaamijku waa soo gabagabaynaya maxaa ku dareysaan halaal kalmad runtii intaan dhihi lahaa sahraa tiri waan u daynayaa jamiil hayaa adiga jamiil ma ku maqalna anaga muudaa ku jirtaa muudka ka bax
iga raalli ahaad runtii intii warheed waa lasoo koobay waanada hala qaato waalidku maaragta aabayaalkuna carruurta ha doonaano hooyinkuna ha u ogolaadaano aabahood ilmaha inay kulmaan oo maaragta wixii xiriir oo cilaaqaada ay yeeshaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga run ahaantii ku ah barnaamij xiiso leh waqtiga aad siiseen Zahra oo maskax kobciso Shukri Sharaf Channel Jamila Official barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmayno dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sii share gareeya asxaabta barnaamijka wixii fariimo aad noo haysiin qaybta comments ka noogu dhaafa waan ka soo jawaabaynaa haddii ilaahay